waxaynu halkan ku bilaabaynaa barnaamij af Soomaaliga kaasoo aynu kaga hadli doono higaada dhawaqa iyo dhigmada afka Soomaaliga. barnaamijkan qaybtiisa u horeysa waxaynu kaga hadlaynaa shaqallada gaagaaban. haddaad eegto qaybta koowaad waxaynu kaga hadlaynaa 9 shaqal gaab ee afka Soomaaliga ku jira bogasho wacan iyo kulan kale. dhawaaqyada shaqallada ee afka ku jira waxay noo qabtaa shaqooyin badan oo aynaan garanaynin. kala garo shaqallada gaaban ee afka ku jira 9 ah. af Soomaaligu wuxuu afafka la wadaagaa codadka aanay iyagu wadaagin ama dhuunta ama debnaha oo afka Laatiiniga ama Ingiriisiga ku jirto iyo afka Carabigu ay qaarba dhan ka wadaagaan, hase ahaatee Soomaaligu intaba uu la wadaago. taas waxay ku tusaysaa in af Soomaaligu uu yahay af aad u heer sareeya. aynu haddaba eegno 9 shaqal gaab ee afka Soomaaliga ku jira. waa laga yaabaa inaynaan dhaadin ama garan sida ay u jiraan. si aynu u saxno dhigmada afka Soomaaliga waa inaynu kala saarno dhawaqa shaqallada gaaban. kuwaasi waxay noo sahlayaan inaynu si fudud u dhex galno dhawaaqyada afka. haddaad soo qaadato cad oo midabka ah iyo cad waa kala duwan yihiin, isku si baynu u dhignaa labadaba. waxaa isna jira hel oo ah, waxaa jira cir iyo hir. way kala culus yihiin labada shaqal, oo cir waa shaqal fudud, hir waa shaqal culus oo i ah. waxaa jira qod iyo qod. qod oo ah faag iyo qod oo tiirka ah way kala duwan yihiin. waxaa jira dul iyo dul. waad aragtaa inay dhammaantood 9 shaqal oo kala duwan yihiin. dhawaaqyada waxaynu kaga hadli doonaa qaybta dambe, kuwan hadda soo socda. shaqal dheerayaasha iyaga hadda barnaamijkan kagama hadlayno. diftoonka shaqallada laydhaa ama shaqal huwanka oo kuwa ay iyo aw iyo sida u dhaca, iyo shibanayaasha. 3dan hadda midna kama hadlayna, laakiin waxaynu ku koobaynaa shaqal gaabka 9 ah. haynu adeegsana haddaba midabyada oo casaan iyo buluug aynu bal u kala eegi doono si aynu sumadaha ugu kala duno, maadaama aynaan weli isticmaalin sumado kala duwan oo ay kala leeyihiin shaqallada culus iyo kuwa fudud. shaqal gaabka fudud waa sumad buluuga. shaqal gaabka culus waa sumad casaana. haddaad eegto dad ama cid ayaynu u akhrinaa sumadaas. dad ama qari casaan baynu hadda siinay adii oo si ay u noqoto dad. waxaa jirta hel. hel waad aragtaa sida u dhawaaqaysa iyaduna. bil oo i ah fudud ama shaqal i oo fudud. dil oo i culus ah ama shaqal i oo culus ah. qod oo o ah iyo qod oo o ah. waxaa jira dul oo u ah iyo dul oo u ah. waad aragtaa 9 shaqal gaab ayaynu leenahay kala duwan. maxay haddaba qabtaan? af hooyo ama alfabeetka haddaynu soo qaadano, alfabeetka aynu u baahanay inaynu adeegsano wuxuu noqon karaa kan oo kale oo ah sida ka Norwejiga oo kale oo leh 9 shaqal gaab sideenoo kale, laakiin qaarkood dhawaaqoodu ka duwan yahay kuweena, iyo sumadaha aynaan adeegsan ee hadda guduudka ah. 5 shaqal ee shaqal gaabka aanu adeegsanayno waa kuwan.
afarta shaqal ee shaqal gaabka culus ahi sidan ay u ekaanayaan. Aynu dib ugu noqono haddaba shaqaladeennii gaagaabnaa. Dad waxaynu u qoran karnaa dad sida ay qormadu labaduba tahay. Dad oo casaanka ah waxaynu u qoran karnaa sida sumadda kale oo ah. Hal ayaynu u qoran karnaa. Bil ayaynu u qoran karnaa shaqalka fudud. Dil ayaynu u qoran karnaa shaqalka culus oo sumadda casaanka. Qod sumadan aynu u adeegsan karnaa o'da. Qod iyo o'da oo iyadana aynu u adeegsanayno sumadda guduudka. Dul waxaynu u adeegsan karnaa sumadan buluuga ah. Dul waa sumadda culus. Marka dhigmadan isu eg ee lababa si isugu eg yihiin, ka dambe mid waliba waa dhigmada cusub, ka kalena waa dhigmada horeynu u naqaanay aynu u dhigan jirnay. Waad aragtaa inay 9 shaqal gaab yihiin. Maxayse faa'iido tahay inaynu kala saarno? Waxay hoggaamiyaan dhawaaqyada isbedela ee shibanaha. 9kan dhawaaq qaarkood shibanayaasha dhawaqooday bedelaan, qaarkood ma bedelaan, qaar kalena si kale u bedelaan. Waxa kale ay yeelaan waxay abuuraan shaqal dheeradheega. Shaqal dheerayaasha inta aynu isticmaalno waxaynu nahay waa 5, laakiin waa 20 dib baynu uga hadli doonaa. Shaqalada qaarkood kuwa dhaadheer waxaa abuura 2 shaqal oo gaagaaban oo kala jaada oo kulmay. Waxay kaloo sameeyaan waxay abuuraan shimane humaaga. Shaqaladan gaagaaban qaarkood marka ay kulmaan waxa dhexdooda ka abuurma ama ka dhawaaqa shibane aan jirin oo aan ku jirin meesha, laakiin si ay isugu xidhmaan dhawaqiisu uu ka dhex yeelo. Waxay ka qayb qaataan dhismaha naxwaha. Naxwo ahaan marka la dhisayo naxwaha ama ereyada ama sidooda qayb bay kaga jiraan iyaga oo kala jaada marka aynu kala saarno. Fiiro gaar haddaba dhawaq iyo macnaha. Dirir waa dirir iyo dirir. Waad aragtaa in midna guduud aynu ka dhignay, midna buluug. Way kala duwan yihiin. Waxaynu samayn karnaa inaynu u qoranno dirir oo ah dagaalan idii aynu naqaanay. Dirir inaynu ida casaanka ah ee hadda aynu u qoran karno. Waa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidha xagay martay, laakiin waxaynu dhismaha dambe aynu kaga hadli doonaa. Ka dirir waa xilliga isna. Labadan erey dhawaaqa isma dhawa, macnaha way ku kala tagaan. Ereyga hore wuxuu ka kooban yahay shaqal fudud buluug ah. Ereyga dambe wuxuu ka kooban yahay shaqal culus oo guduud ah. Waa 2 shaqal oo kala duwan, maaha hal shaqal. Haddaynu eegno waxaa lagama maarmaan ah inaynu kala duno dhigmadooda. Shaqal gaab culusi wuxuu falma gudbaha u rogaa falgudbe. Naxwaha markuu ka qayb qaadanayo oo sida dil ama hir u dhawaaqaya ida ku jirtaa, wuxuu keenaa falka adiga kugu socda inuu cid kale aad ku fasho. Wuxuu shaqal gaabka culusi noqdaa kab dhalan roga falka. Haddaynu eegno kar kululow, culus markaad raaciso waxaynu nidhaahnaa kari. Marka kari cid kale aad falkii ku sii falaysa. Waxaynu soo qaadan karnaa fal kale oo qad waa gaajood ama gaajood. Waxaynu odhanaynaa markaa qadi culus ayay noqonaysaa. Marka qormada dambe waa sida ay u qormayso aragtidayada. Haddaynu naa kor waa cayil, waxaad odhanaysaa kori falkii cid kale aad ku sii falaysa.
taasi waxay ku tusaysaa in naxwaha uu ka qayb qaadanayo i'da culusi iyadoo ka duwan i'da fudud. taas waxaynu yeeli karnaa iminka ful oo dareera waxay noqonaysaa fuli. marka i'daasi waa xeer jira oo imanaya falalka adiga kugu socda qaarkood, qaar kale si kale u dhawaaqaan, laakiin qaarkood ka dhigaysa falka inaad cid kale ku fasho. waxaa cajiiba haddaba shaqalgaabka i culusi markuu ku xidhiidhsamo shaqalgaab i fududa. bakti fal waxa u dambeeya i fudud. markaad cid ku falayso bakti ayaynu odhan layn, laakiin waxaynu isticmaalnaa bakti ayaynu ka dhignaa shaqal dheera oo ah. shaqalkaa dheeri ma jiro, laakiin markay labadaasi isdaba galaan ayuu samaysmaa. tanna waa tusaalaha inaad siinaysa in shaqalgaabka markay qaarkood isdaba galaan ay keenayaan shaqal dheere. marka ama bakti ama si iman karta waxaynu arkaynaa inaanay marka hore jirin, laakiin markay labadaa shaqal isdaba galaan ay noqonayaan shaqal dheere u dhawaaqaya sida si oo kale ama tiir oo kale. marka iyo way kala duwan yihiin. bakti labadanay ka imanaysa. kulanka laba shaqalgaab haddaba haddaynu eegno shaqalgaabadu, shaqalgaabku waxay noqdaan erayo sidooda u taagan. shaqalgaabka aynu naqaan ee sagaalka ahi qaarkood waa erayo, qaarkood waa kabka aynu soo eegnay ee naxwaha ka qayb qaadanaya, qaarba siba u dhaqma. waxay abuuraan shaqal dheere dheega sida tusaalihii hore kaynu ku aragnay oo kale. waxay jideeyaan in degmada ereyga iyo dhawaqu kala madax bannaan yihiin, laanno laba dhawaaq oo isdabagelaya oo laba erey ku kala jira yaa laga yaabaa inay dhawaq dheer sameeyaan oo dadka qaarkii isku daraan, laakiin ay tahay sharci ahaan inaanay isku darsamin, laakiin ay kala qormaan markay isdaba galaanna dhawaqu uu isqaato. waxay ka qayb qaataan dhismaha naxwaha iyo degmada ereyada. haddaynu u fiirsano ereyga u tuuray, i'dii oo ah wax adiga kugu socda ama adigu aad tahay qofkii falku ku socday, udii oo ah preposition ama meeleeye iyo falkii. markaa u tuuray waa xaggaygu u soo tuuray, waxaynu u naqaanaa ii tuuray. markaa iyo markay isdaba galaan labadaa shaqalee fududi waxay u dhawaaqayaan ii tuuray, iyagoo aan la isku dhajinayn oo midba uu erey gaara yahay. oo u tuuray aynu u qoran karno sidan kale. haddaad eegto na u tuuray, nadii waa annaga wixii nagu socday markaanu object nahay ama falku annaga nagu dhacayo. wuuna u tuuray markuu qaato meeleeye wuxuu noqonayaa wuuna u tuuray oo aynu ugu dhawaaqno noo tuuray. marka labada erey way kala qormayaan oo na iyo way kala qormayaan oo na u tuuray, laakiin dhawaaq ahaan waxay keenayaan markay isdaba galaan dhawaaqa. haddaynu eegno ku u tuuray, kuudii oo adiga wixii kugu socdaa aad objecta tahay, iyo udii oo meeleeyaa tuuray fala, wuu kuu tuuray baynuna. markaa waynu isku dhejinaa kuu tuuray baynu dhaan, laakiin maaha laba ereyoo isku dhegaya, waa laba erey oo kala jaada oo aan islahayn oo kala qormaya, laakiin markay isdaba galaan dhawaaqoodu israacayo oo kuu tuuray. haddaynu eegno ma aanu an markaynu leenahay waxaynu ugu dhawaaqnaa maanu antaas aan baynu nidhaahnaa maanaan. markaa waynu isku dhejinaa aabaynu u dhigannaa, laakiin maaha wax isku dhegan.
hadday isdaba galaan se dhawaqa aabay samaynayaan u'da iyo a'du. waxaad arkaysaa in shaqal dheerayaal badani ay ka yimaadaan laba shaqal oo isdaba galay oo kala jaada. bakti oo aynu nidhi marka i lagu daro baktii ayay noqotaa, oo i fudud iyo i culus hadday isdaba galaan waxaynu u kala qoran karnaa i'da fudud oo qoraalkeeda iyo i'da culus oo casaankaa kale ah. waxay tani ku tusaysaa inaynu u baahanay inaynu kala duno dhawaaqyada afkeenu leeyahay, oo aynu ka bilaabayno shaqalada sagaalka. waxaynu eegi doonaa xidhiidhka ka dhexeeya shibanaha da iyo ta iyo shaqaladu siday ula falgalaan. shaqalka fudud saamaynta uu ku yeesho shibanaha ta. waxaynu afkeena naqaan inaanu shaqalka shibanaha ta aanu codadka ugu dambaynin, laakiin haddaynu eegno gunud oo qormada aynu u qorannaa ay taa tahay oo u iyo da ay isugu dambeeyaan, shaqalada fududi waxay ta'da markay ka horeeyaan dhawaqeeda u beddelaan da. markaa gunud u fudud weeye oo ta ka horeysa. markuu shaqalkii dhaco falku la sameeyo ama qof uu leeyahay uu sameeyey, waxaynu nidhaa wuu guntay. da'dii waxaynu ku beddelanaa ta. taasi waxay ku tusaysaa in u'da fududi ama shaqalada fududi hadday ta ka horeeyaan ay da u dhawaaqdo oo laakiin ay ta ahayd. sidaa awgeed wuu guntay markaad tidhaahdo waxaad caddaynaysaa inay tahay ta oo markoodii hore ta ahayd, maadaama uu shaqal fududi ka horreeyay. hadduu baxona ta'dii soo baxayso. marka haddaad eegto tusaale kale, sumad waxaynu u qorannaa inay a iyo da u dambayso, laakiin waa shaqal fudud baa da'da ka horeeya. dhawaaq kastoo da markuu shaqal fudud ka horeeyo ta bay meeshu ahayd. markaa sumad da baynu ugu dhawaaqnaa. markuu falkii dhacayo wuu suntay, waxaynu ta'dii ku soo celinaa ta, maadaama ay shaqalkii gaabnaa shaqalkii fududaa ka baxay ee da'da u rogayay. haddaad eegto shaqalada culus, shaqalada culus saamayn kuma laha matalan ta'da. oo haddaad eegto hurud oo gunud ay isu dhow yihiin oo dhawaqeeda ud ku dhammaado ama da ugu dambayso, hurud ayay qormadana noqonaysaa. haddii uu falku dhaco wuu hurday, markaa u iyo u way kala duwan yihiin. oo u hadday dhawaaq da ka horeyso meesha da baa ku jirtay, laakiin haddii shaqal fudud ka horeeyo ta bay hay, sidaa ay gunud. sumad waxaynu arkaynaa haddaad tidhaahdo leged oo iyadana a iyo da ay iska dambeeyaan. leged waxaad aragtaa inay a tahay ee aanay a ahayn. leged markaad tidhaahdo wuu legday, ma baxayo, da'dii kama baxayso, lianno shaqal culus markuu ka horeeyo ereygaasi ama dhawaqaasi wuxuu ahaa da. waad aragtaa shaqalada gaaban ee fudud iyo kuwa culusi isbeddelka ay keenaan. maxaa keenay haddaba isbeddelka ku dhacay falalka qaarkood? ma u baahana inay sumadaha shaqalada fudud iyo kuwa culusi kala dhigmo noqdaan? haa, maya, mise hore ma u socnaa? haddaad eegto haddaba dhigmada, waxaynu ka hadlaynay da'da iyo ta'da sida ay u xidhiidhaan. waxaa si lamida u xidhiidha ga'da iyo ka'da. markaa shaqal gaabka fududi saamaynta uu ku yeesho shibanaha ka. haddaad tidhaa duruq, u
oo shaqal fudud ah ayaa ga'da u dambaysa ka horeeya. markuu falkii dhaco wuu durkay, ka buu ku soo noqday sidii ta'dii ku soo noqonaysay marka shaqalka fudud ka horeeyo. arag ag waxaa ka horeeya ga'da shaqal fudud oo ka ay u tahay, marka uu dhacona wuxuu ku soo noqonayaa wuu arkay oo ga'dii way isbedelaysaa. shaqalada culus aynu eegno haddaba. durug murug ayaa sideedoo kale u dhiganta, marka u iyo u ayaa kala gasha sida midabka uu kala yahay iyo qormada ka dambaysa ee la midka ah. marka murug waa ug, waa shaqal culus, wuu murugay. ga'du markay u'du ka baxdo ga'bay dib ugu noqonaysaa. waxaad arkaysaa inay ka'da markay ka horeyso shaqal ka horeeya fududi ay ga u dhawaaqdo, laakiin shaqal culus markuu dhawaaqa ga ka horeeya ay ga ahayd. dhereg waa ag, waa shaqal culus baa ga'da ka horeeya. dhereg wuu dhergay, waad arkaysaa inaanay isbedelayn. ka'da iyo ta'da waxaa bedela shaqalada fudud. maxaa keenay haddaba isbedelka ku dhacay falalka qaarkood? ma u baahannahay inaynu kala duno sumadaha? haa, maya, mise hore ma uga soconna? waad aragtaa inta waxyaabood ay qabtaan sumadahan kala duwani oo aan u baahnayn in isku si loo dhigo. markaynu eegno haddaba, afafku waxay leeyihiin alfabeet. iminka carabida oo kale alfabeet buu leeyahay, afka ruushka oo kale alfabeet buu leeyahay, ingiriisida ama laatiiniga oo kale alfabeet buu leeyahay. waad aragtaa in sumado go-an oo aan isdhaafayn oo xidhiirsan ay yihiin, oo mid waliba magac gaara leedahay. sida matala carabida oo kale ee ja'da ay jiim u yaqaanaan. ja ma yidhaahdaan, laakiin jiim baa magaceeda la yidhaha. sumaduna waa ta ja aynu u naqaano. afafka oo dhammina sidaasay u leeyihiin sumado oo mid waliba magac leeday, laakiin aan dhawaaqii ahayn. dhawaaqa isaga waa lagu sidkaa ee maaha sumadaha. sumaduhu iyagaa magaca leh, dhawaaqu laakiin waa ka wakiilo, isaga waa lagu sidkaa, mid walibana mid buu u dhigmaa. haddaynu eegno haddaba afkeenna af soomaaliga, dhawaqa aynu tahnaa maaha alfabeet, waa caddaan. waxaynu samaynaa inaynu shibanayaasha iyo shaqalada iyo qaarba gees u dhigano oo dhahno waa alfabeet, laakiin ma jiraan alfabeet aynu leenahay. dhawaaqyadaynu tahnaa sidaynu doonno u dhignaa, aan xeer lahayn. qaarkood laba isu saarnaana waa dhawaaqa hebel ama waa alfabeetka. haddaba alfabeetka aynu u baahanay inaynu adeegsano. hadaad eegto alfabeetkan waa ka norwejiga, wuxuu leeyahay 9 shaqal. inagu 5 baynu adeegsanaa, laakiin iyagu 9 bay adeegsadaan. shaqal gaab oo qaarkood ay kuweena la mid yihiin, qaarna ka duwan yihiin. sumadahan kale ee guduudku marsan yahay iyaga laftooda ma isticmaalo. waynu u baahanay inaynu ku darsano maadaama aynu kuwa kaleba isticmaalno. 5tan shaqal waa shaqal gaabka aynu u isticmaali doono. 4tan kale waa shaqal gaab culus aynu isticmaali doono. waxaynu markaa gelaynaa alfabeetka. haddaba alfabeetka aynu u baahanay inaynu adeegsano. dadka cilmi afeedka aqoonta u lihi waxay qiraan in wax badani ka dhiman yihiin toosinta dhigmada afka soomaaliga. waa mid xaqiiqo la isla yaqaan. miyaanay ahayn inaynu saxno khaladka aynu isla qirno ee ah in afku horumarin u baahan yahay? miyaanay ahayn in dhawaaqyada afkeenu leeyahay ee aynu isku dhex millo aynu si cad u kala saarno oo sax u qoranno afkeena? miyaynaan u baahnayn in afkeenu noqdo af hab cilmiyeysan loo barto oo la barbar dhigi karo afafka dhigmadooda iyo naxwahoodu fadhiyo?
dadka isku daya inay afka Soomaaliga bartaan waxay la kulmaan dhib maadaama aanay jirin aqoon sheegaysa xeer la raaco marka ereygu isbedelo dhawaqa uu yeelanayo iyo naxwaha oo aynaan sharax fiican ka bixinin aqoon darro awgood. Shaqal dheeraha mar dambaynu ka hadli doonaa diftoonka oo shaqal huwanka ama kuwa badan ee ay iyo aw iyo sidaa u dhawaaqa. Shibanayaasha iyagana mar kalaynu ka hadlay. Waxaynu intan kaga tegaynaa qaybtan oo ah dhigmada afkeenna ma saxna. Alfabeetka aynu u baahannahay inaynu adeegsano dad oo a ah waa a fudud iyo dad oo a ah. hel, bil, dil, qod, qod, dul, dul. Waad aragtaa inay sagaalka shaqal kala duwan yihiin, shaqo kala duwan qabtaan, siyaabo kala duwan u kala galaan afka iyo naxwaha, inay qaarkood ereye yihiin aan wax kale lagu dhejin karin erey ahaan markay u taagan yihiin. Dhigmada afkeenna ma saxnaa waa mar kale, waa hadal aynu u baahannahay inaynu wax ka qabanno. Ammaano eebbe iyo kulan kale. Waad mahadsantihiin dhammaan.